anigana mar walba waa dhiirigelin jiray oo aan ku faraxsanaa inuu macnaha heerkaas uu soo gaaro oo guulo badan oo taariikhi ah oo dalka oo qaran hadii ahaalad dig wax ahaalad laacibka kooxda kubadda cagta Elman iyo xulka qaranka Soomaaliya Anwar Said Cali Shakunda ayaa maanta ka baxay caasimadda magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeda dalka dibadiisa. xidigan weerarka ugu dheela kooxda jaalayaasha Elman ayaa kamid ah xidigaha ugu halista badan ee ka ciyaara horyaalka Soomaaliya Premier League iyadoo ay xusud mudan tahay in xil ciyaareedkii dhamaaday uu qayb ka ah xidigii ku guuleystay goolalinta horyaalka Soomaaliya Premier League. cabqariga hore kooxda kubadda cagta LLBB Jeyo ayaa waayo wanaagsan ku soo qaatay muddadii uu ka dheelay horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya Premier League wuxuu ahaa mid xirfad badan kuna dheereeya goosmada fudud. Farxiya Saciid Ahmed waxaaska ciyaarahan Anwar Said Cali Shakunda waxay ka waramaysaa dareenkeeda ku aadan safarka xaajigeeda iyadoona sidoo kale sheegtay inay dhiirigelin jirtay mar walba gacliyaheeda. waxa aad u mahadcelinayaa TV Goal TV iyo walaalkii Cabdifataxnaani asaga noo soo baaqday hoygaaga deganaa magaalada Muqdisho. waxa halkan u joognaa inaan ka bixino sida aad ogtihiin Anwar Said Cali Shakunda oo ah xaajigeyga. waxaan rajeynayaa inuu Ilaahay safarka iyo wadada uu safe uga dhigo insha Allah meesha jecel yahay inuu nabad ku tago asoo nabad qabana insha Allah dalka dib ugu soo laaban doono mar dhow haduu Ilaahay hal ka noqdo. maanta waxa dadaal badan oo asaga muujiyay anigana mar walba waa dhiirigelin jiray oo aan ku faraxsanaa inuu macnaha heerkaas uu soo gaaro oo guulo badan oo taariikhi ah oo dalka oo qaran hadii ahaalad dig wax ahaalad iyo hadii meel walba ahaalad oo macnaha uu la soo qaybsado insha Allah waxaan rajeynayaa inuu halkiis ka sii wadi doono haddana wuxuu bixi doonaa safar gaaban insha Allah hadii uu macnaha barnaamijyada uu leeyahay oo arrimo family ah oo soo dhameystana waxaan rajeynayaa inuu soo laabto insha Allah. dhab ahaantii waa dareen muujinaya jacayl lab ah isku kalsoonaan isdhiirigelin markaad aragto labada lamaane sida ay nolosha ugu guuleysteen dhan walba. haddaba mar aan wax ka weydiiyay Anwar qorshaha safarkiisa iyo garab istaaga oo ka heli jiray marwadiisa wuxuu igu jawaabay sida tan. naani ma santahay maanta booqashada noo soo booqatay gurigeena saan hor u sheegay maanta safar yar aan rabaa inaan galo dalka dibadiisa. insha Allah waxaan rajeynayaa dalkan inaan dib ugu soo laabto oo reerkeyga iyo xaaskeyga ciyaalkeyga dib aan ugu imaado. waxa arrin yar aan rabaa inaan soo dhameysto insha Allah. ilaahay waxaan rajeynayaa inuu caafimaad aan qabo igeeyo caafimaad aan qabo iga keeno insha Allah. runtii xaaskeyga waxa inta ku soo koob kara ma ahan kubadda cagta intaan ku dhex jiray mar walba dhiirigelinta koowaad eedan ka heli jiray waqti walbana way garab taagneeday waqti walbana aan sacba maro ama farxad aan ku jiro xilli walbana garabkeyga taagneeday xaaskeyga waxa waaye waxaan inta ku iloobi kara ma ahan anna inaan zaid ma ugu dheeraano insha Allah. waxaan rajeynayaa inaan 2 isbuuc ama 2 bilood hadii kor u kacdo 2 bilood inaan soo qaato insha Allah. armeyga aan soo dhameysto insha Allah dibna ugu soo laabto insha Allah. laakiin xaaskeyga waxa waaye wax badan iga caawiso waxaan inta ku soo koobo kara ma magacaan aan yeeshto Ilaahay ka soko garab ay ugu siisay inaan magacaan yeeshto. dumarka waa kuwa guulaha gaarsiiyay ragga markaad aragto dadka badi ee nolosha ku guuleystay waxaana guulooda ka dambeeya dumarka ay u dhaxaan waana tusaalaha ugu weyn ee labada lamaane maadaama Anwar uu garab istaag buuxa ka helay Farxiya oo ah xaaska uu qabo. labada lamaane oo nolosha wax badan ka soo maray ayaa wuxuu alla ku maneystay wiil iyo gabar. waxa magaalada Muqdisho ee caasimadda saaka ka baxaya ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara kooxda kubadda cagta Elman Anwar Said Cali Shakunda iyo xulka qaranka Soomaaliya kaasoo safar gaaban dibadda ku tagi doona. waxaana maanta ku booqana hoygu ku nool yahay ciyaaryahankan waa halka in joogna maanta. Cabdifatax Abdirashiid Abuukarnaani Goal TV Muqdisho.